xukuumadda Somaliland ayaa waxay markii ugu horeysay ka hadashay xiisadda ka taagan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga taasi oo maalinnimadii shalay ay soo galeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Itoobiya isla markaana ay la wareegeen xarumaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo waliba qaybaha kala duwan ee dawlad deegaanku ay sameeyeen mudaharaad ay kaga soo horjeedaan ciidamadaasi soo galay wasiirka wasaaradda umuraha dibadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo si khaas ah ula hadlayay TV-ga Universal ayaa mowqifka xukuumadda Somaliland ay ku aadan xiisadaasi ka soo cusbanaatay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uu yiri sida tan runtii xiisadda inta ka taagan insha Allah binal kariim waxaan ilaahay uga baryaynaa inay degto oo ay ku dhamaato si nabad ah inay ku dhamaato ayaan u rajaynaynaa waxaan ugu baaqaynaa cidday khusayso oo dhan in arrinka ay ku soo dabaalaan sidii nabad loo dhamayn lahaa dabcan wax kasta oo ka dhaca jaarkeena wayna saameeyaan innaka marka way fiican tahay in maxay raad arrinkaas aanu faraha ka bixin oo nabad lagu dhameeyo waa u yaala runtii dawladda Itoobiya oo dakhliya inuu ma faragelin karo wuxuu baan ugu ducayn karaa inuu si wanaagsan ku dhamaado Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.